anigu waan la yari yaabanahay wax mataqaanaa dad Soomaaliya oo muslina oo taliya intay fadhiisteen ay yidhaaheen Israa'iil baan ictiraaf ka rabnaa oo ay keenaan Soomaaliya. anigu waxaan aad ula yaabanahay Siyaad Barre dadka waqooyi jooga buu dhibaato u geystay. waxa weeyaan narrative cusub oo la rabo in laga dhigo dadka waqooyi jooga inay gooni yihiin. maya ummad baa la xasuuqay TV-ga inagoo ka daawanayna 3 sano 4 sano. dadkii xasuuqay halkii la takoori lahaa waliba haddaan nahay Muslim iyo Soomaali baa qaarkeen soo dhaweysteen. waa waxaan caqligayga aniga gelaynin. kaaga ugama tagtid dhibaatay ku jiraan. ani dadkayga waa dadka jooga Kismaayo iyo Beledweyne iyo Boorame iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo kalena way jirtaa oo aan cidna garaabin. dhibaatada soo gaadhay dadka Muqdisho degan ciday soo gaadhay ma jirto. laga soo teg maanta halkay wax marayaan waad ka waraysaa. beeshii dhexe beelihii darfaaha ahaa inuu reerkaad ka dhalatay uu ku jiro labadan reer ee kala hartigaana ay ka mid yihiin meeshay ka taageen midnimada waa la arkaa. maxaa xal? what's the way forward? horta anigu waxaan qabaa waqtigii ugu adkaa hataa 30 sano aan soo marnay waqtigii ugu adkaa inaan ku jirno iminka. waayo 30 sano ilaa sanadkii la soo dhaafay markaad ka tagto innagaa dhexdeena khilaaf ka jiray oo isfaham la'aan uu ka jiray oo ku dadaalayay had iyo jeer inaan isafgaranno oo wax wada dhisano. qolaba gooni ha u cadhooto beel walba gooni ha u sheegato eed iyo waxa. hadda waxa soo galay wax cusub. waxa cusub ee soo galayna waxa weeyi Israa'iil way cusub tahay. wax sidaa inoo soo dhex galay ma jirin. mid anigu waan la yari yaabanahay wax mataqaanaa dad Soomaaliya oo muslina oo taliya intay fadhiisteen ay yidhaaheen Israa'iil baan ictiraaf ka rabnaa oo ay keenaan Soomaaliya. anigu waxaan aad ula yaabanahay waxay la mid tahay Hitler waxun buu ku sameeyey dadka Yuhuudda waana la wada waa la habsaamay. aad baa looga habsaamay in la badbaadiyo Auschwitz iyo Poland iyo wixii concentration camps-kii yaalay. laakiin aakhirkii waxaa la isku wada raacay inuu nin xun ahaa oo la joojiyo. tii oo kale ka dhacday Gaza iyo hadda weli ka socota West Bank. ummad baa la xasuuqay